farxaddaasi waxay gabagabo u ahayd cayaaro kubadda cagta ah oo sanadkii 41aad ay qabteen Washington Somali Stars oo toddobaadkan lagu soo gabagabeeyay waqooyiga Virginia ee dalkan Mareykanka. waxaa tartanka ka qayb galay kooxo dhalinyaro ah oo ka kala socday magaalooyinka Mareykanka iyo Canada. waxaa dhinac socday tartan u dhaxeeyay 6 koox oo kale oo ah ciyaartooyda cuslaatay oo qaarkood hore ugu soo ciyaari jiray naadiyadii Soomaaliya kuwaasoo ka kala yimid isla Mareykanka iyo Canada. labada tartanba waxaa koobka ku guuleystay gobolka Ohio. macalinka kooxda guuleysatay ee Ohio United ayaa iga warramay waxa u suurageliyay guulahaasi. dareenkayga aad u yahay u sareeya farxad la soo koobi kara ma aha inaan odayaashii oo aniga aan u dheelayay inaan koob qaadno iyo dhalinyaradii aan coach gareynay inay koob qaadaan taas waxay sheegaysaa Ohio inay tahay gurigii sports. waxaa noo suurageliyay dadaalkii aan soo gelinay, waxaa noo suurageliyay supportan ka helno community-ga, waxaa noo suurageliyay odayaashoona garab taagan iyo dhalinyaradii oo rabaan in ay kubadda jecel yihiin inay dheelaan sida highest level inay dheelaan. intaasaan noo fududeysay Ilaahay hadduu yidhi. inkastoo guushu ay muhiim tahay haddana qabanqaabiyaashu waxay ku sheegeen in ujeedka uu ka qoto dheer yahay koob la kala qaado. waa kan Jaamac Maxamed Xirsi oo ah madaxa Washington Somali Stars ee tartanka soo qabanqaabiyay oo iga warramay muhiimadda tartanka. waa aad u mahadsan tahay muhiimadda aad u leeyihiin waxa weeyaan waxaan soo bandhig weeyaan oo dhalinyarada Soomaalida oo North America ama Canada joogto ama meesha rabaan ha joogaan inaan talentkii Soomaalida dhalinyarta ay leedahay inaan u soo bandhigno dadkii agentkii ahaa ama jaamacad geenay ama professional geenay in ay ku arkaan maanta garoonkan ay ku arkaan rajadan aad ay u weyn tahay hadda ciyaarta waa gabagabadii ciyaartan markay ka wada hadlayaan arkaysaa ay arkayaan cunigan waa arkaysaa uu ciyaarayo bununiga u qaadanayo marka Soomaalidii waxa u malaysaa in anakaan leenahay talent inaan leenahay. ciyaartooydii hore ee Soomaaliya ayaa rumaysan in dhalinyaradu ay haystaan fursad aanay iyagu horay u helin. nimankan ka yimaadeen oo agents waa nimanka oo dhalinyarada qaato hadhowna tuso naadiyada ama jaamacadaha hadhowna ay heer weer ka gaaraan. marka waxaan leeyahay dhalinyarada dadka daawana doono ama dhagaysan doono barnaamijkan inay sanadka dambe ka soo qayb galaan ayagoo og ku tashanayo inay barnaamijkan ay imaanayaan dad oo agents ah oo meel gaarsiin karo. marka waxaan leeyahay sanadkan waa bilow aad iyo aad buu u fiican yahay. anagu maanan haysan jaaniskan waagaan waddankaa soo galnay MLS hataa maysan jirin. marka baaditaama MLS yimid annaga waan daqoonnay. marka maanta waxaan rabnaa inaan dhalinyaradan ku xoojinno. dhalinyarada ka qayb gashay tartanka kubadda cagta ah qaarkood ayaa qirsan inay haystaan fursad ay ku xaqiijin karaan horumar dhinaca ciyaaraha ah. waa kuwan Cabdullaahi Axmed Maxamed iyo Cabdiraxmaan Axmed. ciyaarahan aad iyo aad bay u dhiirigelinayaan dhalinyarta. waa wax aad loogu baahnaa, waa wax mar walba la qabto oo dhalinyarta lagaga ilaalinayo aafada daroogada. waa waxaan aad u soo dhaweynayno, aad baan u bogaadinaynaa maamulka Washington. ciyaarahan waxaa u arkaa mashruuc wanaagsan oo loogu talagalay dhalinyarta Mareykanka degan isugu yimaadaan la isbarto jaaliyad Soomaaliyeed la leeyahay in la isbarto la wada ciyaaro. waa tan labaadna inay dhalinyarta qaar ay opportunities ay helaan oo laga xusho meeshan oo ciyaaryahan fiican laga yaabo in meeshan laga soo xusho. tababaraha kooxda ka socotay ururka Today ee ka dhisan magaalada Toronto ee dalka Canada oo tartanka ka qayb galaysay ku dhawaad 40 sano ayaa aaminsan in tartamadan oo kale ay fursad u yihiin dhalinyarada. diiradda ugu weyn oo anaga aan saarayno waxay tahay ciyaalka dhalinyarada in maaragtay mustaqbalkooda college university waxyaabahaas oo dhan ay ku helaan fursad ayagana isku bartaan. waxaa kaloo jirta maaragtay fursadaha hadda soo baxay in dad maaragtay kolleejyada iyo jaamacadaha ka socdo inay imaanayaan. xaflad lagu soo xiriyay ciyaaraha isla markaana abaalmarin lagu guddoonsiinayay dadka qaar ayaa lagu qabtay isla waqooyiga Virginia taasoo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaa xafladdaasi ka qayb galay sidoo kale wakiillo u kuurgelayay dhalinyarada intii uu tartanka socday kuwaasoo xushay ilaa 6 ciyaartooy. Xuseen Nur Xaaji, qubanaha VOA, Virginia.